shir jiraaydo maanta ay qabteen qaar ka mid ah cuqaasha waayeelka waxgaradka aqoonyahanka siyaasiyiinta dadka deegaanada galbeedka magaalada Ceergaabo gaar ahaan deegaanka Kalshiiq iyo deegaano badan oo hoos yimaada oo maanta shir jiraayid ku qabtay hoolka hotel Ugbaad ee magaalada Ceergaabo ayaa saluug ka muujiyay waxqabadka xukuumadda iyo xisbiga talada dalka ay kulmiye waxaana xubnaha sidoo kale shirkooda jiraayid ay ku sheegeen in kalsoonidii kala noqdeen xildhibaan ka tirsan golaha wakiilada Soomaaliland oo ay sheegeen codkoodii uu ku soo baxay waxaana xubnaha sidoo kale ay shirkaasi jiraayid ay ku cilaamiyeen shirweyne ay dhawaan ay yeelan doonaan dadka deegaanadaasi waa shir jaraa'id oo ay kaga cabanayaan xukuumadda Soomaaliland iyo xisbiga talada haya ee kulmiye waxayna ku cabanayaan beeshaasi inaanay helin wixii ay xaq u lahaayeen xisbiga kulmiye iyo xukuumadda Soomaaliland midnaba haddii aan hay caaqilada reerka oo caaqilada saddex caaqil leh waxaanu codsanaynaa dawladda xukuumadda ilaa taariikhdii hadday mucaarid ahayd iyo hadday maxaafid ahayd marba xaqii aanu ku lahayn hadday shaqaale tahay hadday mid tahay xuquuqdii aanu ku lahayn midnaba kama hayno beeshu waxay leedahay xuquuqdayadii ayaanu dawladda ka doonaynaa waxaanu xisbiga kulmiyana waxaanu leenahay shirweyne hadday tahay xaqii aanu qaybtii aanu ku lahayn reerka annagoo qaybtii shiribada la gudboon lahayn qaybtayadii waa maqan tahay meeshay ku maqan tahay iyo meeshay jirto iyaga ka mas'uul noqonaya anigu wax kale ku dari mayna waxaan leeyahay dawladda waa ayidsannahay xukuumaddana waa ayidsannahay xisbigana waa ayidsannahay laakiin waxa beeshu u diyaar tahay xaqeedii iyo xuquuqdeedii in xukuumaddu siiso cabdiraxmaan yuusuf cartan beeshii dooratay baanu nahay beeshii haddii laba leeyahay u soo gashay helganka baanu nahay anigaygan haddii hadlayaa hawshiisii waaba laygu dhaawac isaguna waa ogyahay taa iyadoo ay saas tahay maanta reerkii wuxuu noqday isagu qoyskiisii unbuu ku ekaaday maanta ka dambaysa wixii haddeer ka dambeeyey cabdiraxmaan yuusuf cartan waa kala noqonnay xilkii xildhibaannimo ee uu hayay haddaanu nahay beeshaba maxamed reerku wejigii labaad shirkii hore waxay ku qabteen magaalada Kalshiiq oo la oran jiray Hilow iyo Hanuun wejiga labaad waxay ku qabanayaan bisha 5 kowdeeda waxay ku qabanayaan Ceeriyaan waxayna kaga tashanayaan danahoodii